kulanti wacan oo xiiso leh dhamaantiin ba khayarta hawada naga daawanaysa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah waraysi aan la yeelanayo gudiga qabanqaabada xuska ka soo wareegtay markii la u dhacay dhagax turkii UFO hadaba halganka UFO ayaa waxa uu kamid ahaa halgamada ugu dhumucda weyn ee soo maray qaranka Soomaaliland waxaana khadka taleefanka igu jira afar mudane oo kamid ah mudanayaasha degan wadankan UK gaar ahaan gobolka Wales magaalada Cardiff waxaana arinka aan kala hadlaya ay tahay ama aan ka wareysanaya bal qabanqaabada xuska dhacaya magaalada Cardiff ee ariga Wales ama dalka boqortooyada Ingiriiska halkaas oo si weyn la isugu diyaarinayo maalinta 1 March in uu dhaco munaasabad aad u ballaaran hadaba khadka taleefanka waxa igu jira Ciid Cali Salaan oo ah aqoonyahan reer Somaliland ah runtiina mujaahid kamida dadka sida weyn ugu halgama qaranka kamida waxa ku xiga Cabdullaahi Maxamed Axmed Doodi oo isaguna kamid ah mujaahidiinta sidoo kale dadka u halgama qaranka iyo horumarkiisa aqoonyahan Faysal Ciise Geel Jire ayaa kamid ah oo khadka taleefanka igu jira Xasan Maxamed Cige ayaan ka maqnayn oo gudiga qabanqaabada sanad guurada loo sameeyo xuska maalinta aadka ugu weyn qaranimada Somaliland iyo halgankii ummadan waxaan rajaynayaa khadka taleefanka in ay igu jira oo ugu horeeyo aqoonyahan Ciid Cali Salaan Ciid ku soo dhaw telefishinka qaranka Somaliland waxaan halkan warbixinta aan ku sheegay in maalin muhiim ah ayduun xus u sameeynaysan amaba munaasabad la isugu imanayo bal hadaba waxaad nooga warantaa maxay ku saabsan yahay munaasabadan 1 March ka dhici doonta magaalada Cardiff ee arrimaha halgankii qarankani uu soo maray kamida waxa weeyaan xaqiiqdii sida aad u sheegtay ayaan qiimale bisha kowdeeda jimcaha ayaan qabanaynaa barnaamijka qabanqaabadaasi xafladuna waa xaflad aad iyo aad u ballaaran sida aan ku muujinay magaranaysa xagga publicity-ga iyo magaranaysa aanu ku faafinaynay waxaan doonaynaa inaanu ka hadalno Somaliland wixii hore uga soo dhacay ee taariikhdeeda ee halganka ee dhibaato loo geystay taariikhdaas oo kala duwan oo kulba maraaxil maraysay waxyaalo badan baa kamid ah dadku markay qaxeen waxa kamid ah markii hore dalka gudaha joogeen xaqiiqdiina ay ahayd dad la xaaqayo oo ilaa genocide arrintu ay gaadhay oo la ogyahay wixii lagu bambareeyay diyaarado dadku dawladna ay ka diideen waxa kale oo jira demokrasiga kulba maraaxil ku marayay dhalinyartii demokrasiga kacday ee dadka Turkiga maanta ayaantan waxa weeye waa ayaan magaranaysa madaxweyne maxamed Siiraanyo oo ka dhigay daraar magaranaysa national oo maaragtay holiday oo tidiraati dawladda dabaal degay marka daraartaas ayaan xuskeega aan sameynaa wixii dhacay arrinkuna wuxuu ku fadhiyaa wixii dhacay halkay maanta Soomaalida marayso demokrasiga horumarka ah iyadoo idina waxba u tarin iyo mustaqbalka sidaan u arkayno kalena sidii aan magaranaysa Wales oo aad inoo shaqeyn jirtay wadankan oo rag badan oo mudakir ay joogaan ayagana sidii aan u xusi lahayn wixii ay qabteen oo ilaa qaado ka dhaxeeya labada dal oo si gaar ah marka qaybta kalena waxaan noqonaysaa anagoo doonayna dadkii la soo shaqeeyay inaan u mahadnaqo horta arrinku wuxuu ku fadhiyaa iyo ujeedadu waa sidaas markaad eegto Ciid maalintani waa maalin ku suntan ummadan marka ma oran karna jiilka cusub si aan loo ilaawin taariikhda ummadani ay leedahay waa qayb kamid ah barnaamijkan aad ku qabanaysaan magaalada Cardiff xaqiiqada ujeedada ugu weyn waa taaba waayo waxaanu aragnay magaranaysa dhalinyaro badan oo laga yaabo qaarkood inay jaamacadda dhameeyeen amba ka shaqeynayaan meelo badan oo xaqiiqdii taariikhdiiba garanay oo oranay maxaa dhacay hadda fahmi marka waxa weeye haddii ummad taariikhdeeda ay lowdana mustaqbalkeedana ma garato waa wax la wada garanayo marka waynu aragnay wadamadan aynu joogno amba Yurub ha ahaato amba Mareykan ha ahaato caalamkan aynu joogno
waxay ka hadlayaan 300 sanadood wixii dhacay bay dharaar walba xusayaan oo yaryarkooga barayaan waayo haddii kale waddanku mustaqbal ma yeelanayo dadku ma isma fahmi karaan waayo qofba haddii kale taariikhda siduu doonayo ayuu u dhigayaa marka tan waxaan uga jeednaa waa caynkaa weeyaan sidaasaan arrin ku socdaa wixii hore u soo dhacay halkay maanta marayso iyo mustaqbalkaba ciddaan ma garanaysaa arrinkaa aan doonayno inaan ka dhaadhicinaano waa dhalinyarta iyo dadkan kale ajnabiga ah aynu doonayno inaynu halgankeennii iyo waddankeennii aynu caalamka dhex dhigno wixiina soo maray iyo halkan maanta marayno marka ujeedadu waa sidaas sheegtay dalmarow cabdiraxmaan waxaad ii gudbinaysaa ciid mudane cabdiraxmaan maxamed aad baan kuu salaamaya cabdiraxmaan waxaan rajaynayaa inaad imaqlayso waan dhawahay waana ku maqlayaa inta rasmiga ahayd iyo ujeedada shaka loo qabtayna waa lagu sheegay waan dhawahay cabdiraxmaan bal ka waran qabanqaabada habka aad u wadaan yaa kasoo qeyb gelaya yaa intee goormuu dhacaya kulanku bal iyadana faahfaahin naga sii waa si wacan weeye kulanku wuxuu dhacayaa 1 bisha la yidhaahdo March buu dhacaya oo maalin halkan badiba fasax laga yahay St David's Day ay yidhaahdaan ayuu ku beegan yahay marka anagu wax ku jirnaa loogu talagalay caruuraha iskuullada laga fasaxay baan hadda anagu ku jirnaa weekii ingiriisku bari mar hore qaateen gobolkan gobol Wales leeyahay weeye oo xukun daaqili haysta sidaa awgeed fursadaasaan ka faa'iideysanay 1 bisha March ayaana uu dhacayaa galabnimadkii 6 dhiman ilaa iyo 8 dhiman ayuu dhacayaa haddii ilaahay ka dhigo dhowrkaas oo cad waxaan ugu talagalnay sida uu idba taabtay in laga warramo soo jireenkii iyo taariikhdii wixii dhacay Somaliland gaar ahaan halgankii iyo wixii ka horeeyay si gaarana waxaanu doonaynaa inaanu u taabanno halka ay maanta gaadhay baraaraha ku jirta Somaliland iyadoo oo aan isku xirayno taariikhda wixii tagay iyo waxa timaatada ama tan joogta maanta ayaan isku xirayno ayaanu doonaynaa in aanu dadkii nala soo shaqeeyay ilaa iyo dhowr iyo 30 sanadood ugu dambeeyay ku noolaa walashka MBL ahaa dibadinkeeda police commissioner ahaa muxuu ahaay dad journalist iyo wariyaal ahaa inaan honor garayno oo iyaga laftooda u mahadnaqdo ayaanu doonaynaa marka shirka dadka soo qayb galaya waa dad high profile waxa ka soo qayb galaya MP-ga ama member of parliament-ka aad iyo aad ugu horeeyay qadiyada Somaliland Stephen Dowty aanu nagu doorano haddaanu nahay Cardiff South Banaf waxa ka soo qayb galaya Alan Michael oo ah maartay commissioner-ka qaybtan aanu deganahay police commissioner-ka ah police-ka commissioner-ka waa oo horena waxaan jiray MP-ga xaafadda oo aad iyo aad halgankii ugala soo qayb qaatay dadka iyo weliba halgankii qoramahay badbaadadii dadka qaxootiga intiisii badnayd ee Wales la keenay ama UK ba timiba kagii horeeyay buu ahaa taasir policy-geeda inay bedesho albaabada furay buu ahaa oo mahadnaqeynaa waxaan wariyaashu baan mahadnaqeynaa waqtiga taariikhda waxay naga qoray hadda 70 jir ah oo shirkay nagala soo qayb galaya waxaa ka soo qayb galaya media badan oo ay ka mid tahay ITV oo ka mid ah BBC-da oo ay ka mid tahay Wales Online oo waxa kale oo iyana ka soo qayb galaya ka badnayn dadka martida noo ah leader of the council leader of the councilka hogaamiyaha councilka leaderka ayaa ka mid ah Hugh Thomas oo isaguna shirka xafladda markaas ka soo qayb galay oo dadkay dalmarow in Cardiff muddo laga joogay marka 2 sanadood inay ictiraaftay local government-keeda ictiraaftay Somaliland waana magaaladii labaad ee localkeeda uu ictiraafay local council-keeda ictiraafay Somaliland marka talafteeda inaan honor garayno oo ugu mahadnaqno ayaan doonaynaa xiriirkuna inuu sii jiro aan intii ku dhiman ayaanu doonaynaa marka haddaad weydiisay martida waa kuwa waqtiga la qabanaya shirku waa waqtiga ummadda reer Somaliland na maqlaysa idaacadaha laga maqlay wixii ka soo qayb galaya gaar ahaan dadka Wales degan waa ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aynu wixii ina soo marayna aynu isu sheegno dadkana u sheegno oo aynu maqallo wixii hadda taagana aynu tusno caalamku inaynu ahayn dagaal dadka hadlaya dhibaato soo gaadhay inaynu horumar aynu nagu gacmeena ku abuurnay ilaahay nala qabtay inaynu samaynay iyo mustaqbalka halkaynu hogsanayna iyo investment ka socda iyo caalamka macaamilkiisa iyo insha Allah ictiraaf waynu haysanaa kiil macaamilka iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo investment waynu haysanaa nabadeena waa la garwaaqsaday waxa weeyaan kii siyaasaduna insha Allah uu daba socdaa marka arrimahaas aynu aad baad cabdiraxmaan u mahadsantahay waxaad ii gudbisaa Faysal Ciise Geel jire
oo kamid ah qabanqaabiyaasha. Faysal oo kusoo dhaweynaya haddaad si fiican khadka taleefanka ii maqlayso. waan weliya dalmar waan ku maqlayaa runtii waan adiga waan aad baan ku salaamaya iskiisiga qaranka dhammaan reer Somaliland ayagana halkan aan ka salaamaya. aad baan Faysal kusoo dhaweynayaa. Faysal waxaynu ognahay in bulshada reer Somaliland waxyaabaha ay ka siman yihiin ee aanay wada ilaawi karin in ay kamid tahay waxyaabihii halgankii qaraara ee ay soo galeen ee taliskii macangaga ahaa ee manaxaanka ahaa oo ummadooda uu xasuuqay. munaasabadaha noocan oo kale ah in la weyneeyaa maxay ugu fadhidaa isu soo dhaweynta ummadda Somaliland oo mararka qaar la yiraahdo doorashooyinkii oo kale ayay ku kala xirgaf kala dhex dhigtay. halgamada noocan ah in la xuso wixii ummadda ka dhaxeeyay la xuso maxay macna u sameynaysaa ummadda? runtii waxay macna u sameynaysaa reer Somaliland marka la eego doorasho markay dhacayso waxa loo tartamayaa on kursiga in walibana wuxuu doonayaa inuu leeyahay aniga kala wanaagsan oo doonaya laakiin arrimahan oo kale waxay xasuusinayaan reer Somaliland dhibaatadii aynu ku soo marnay noloshan maanta reer Somaliland haystaan iyo qixii nin waliba wixiisa intuu dhabarka u qaatay uu Ethiopia ku tagay maanta nolosha ay reer Somaliland haystaan ay dib u xasuusinaysaa. arrinkan maanta aanu halkan ka sameynayna runtii waxa weeyaan mid dhalinta maanta joogta u ah cashar kuwii hore oo tagayna maadaama dadka Soomaalidu guud ahaanba aanay ahayn dad wax qore ay oral society yihiin u baahan inay taariikhdooda dib u xasuustaan. hadda waynu ognahay yuhuuddu ilaa hadda waxa ay caalamka kula dagaalamaysaa oo mar walba xasuusinaysaa wixii la soo maray si aanay mar dambe u dhicin. innaga waxaynu tarayna tusaysaa ama ina xasuusinaysaa wixii la soo maray inaanay Somaliland dayal dambe loo dhiibin. waxay kaloo isu keenaysaa ummadda reer Somaliland waayo dibkii soo martay wada garanayaan marka dib loo xasuusiyo runtii way garanayaan tan in doorashada iyo xalafteedu waa wax iska dhamaanayo maalmo taagan laakiin shaqada Somaliland waxay og yihiin ninka madaxda marka doorashada laga helo in jiha kaliya loo wada socdo ay og yihiin qodobada ugu muhiimsan runtii halkan ay arrinkan taabanayaan waxa weeye saddexda qodob runtii laga dhawaajiyay waxa soo socda iyo halkan nu higsanayno inaynu taariikhdeena xasuusano inaan iloobin wixii na soo maray in aynu dhalinyarta u hanqal taagaysa meel kale halkan waxa loo soo maray aabayaashood ugu soo dhinteen inay runtii ogaadaan waxaa kamid ahaa dhalinyartii maalintii dhagaxa tuuraysa anigoo dugsi dhexe ku jira marka runtii qiimo weyn oo gaarana way isii samaynaysaa ummadana way isu keenaysaa arrinkani. aad baan ku salaamayaa mudane Faysal Ciise Geeljire waxaad ii wareejisaa Xasan oo kamid ah qabanqaabiyaasha. Xasan aad baan ku soo dhaweynayaa haddaad khadka taleefankan isku maqlayno. si fiican baan ku maqlayaa dalmarow waanan ku salaamayaa waanan dhawahay waa Xasan Maxamuud Cige ayaa kula hadlaya. Xasan aad baan ku soo dhaweynayaa. Xasan waxaynu ognahay in muwaadiniin Cabdiraxmaan Faysal oo ka horeeyay waqtigii way sheegeen ujeedada laga leeyahay way sheegeen oo taariikhdii iyo in ummadan ay halgankoodii ay ku suntantahay maalintani. su-aashan adiga ku weydiinaya waxay tahay su-aal ka duwan. waxaa degan beelo fara badan baa Somaliland degan. mararka qaar waxa la yiraahdaa halganka beelaha qaar unba ay ku suntan yihiin. marka dadka qaar waxa laga yaabaa inaanay iska dhex arag marka ay maqlaan halgankii qaraara ee loo soo maray ummadan. arrinkaasi uu soo noqnoqdaa maxaad arrinkaa ka leedahay in taariikhdan badana la yiraahdo dad gaara iska leh? waxa weeye taasi waxba kama jiraan. waxa weeye maxaa waxan keenay ba maalinkan maanta aad su-aasha imanaysaa. waxan keenay waxa weeye ilaahay waxa ugu weyn ee bani aadamka uu siiyey waa karaamada. ilaahay baa quraankiisa kula walaqad karamna bani aadam. karaamadaasi marka la isugu yimaado maalinkan maanta la doono in laga duusiyo qofka bani aadamkii uu ka gilgishaa. arrinta dhacday waxan bilowday waxay ahayd xukun macangaga oo aan ilaahay garanaynin oo aan bani aadamkiisa ma ogtahay xurmaynaynin ayaa meesha ma ogtahay si gaarana ma ogtahay meel gaara loo ayaa loo adeegsaday. guud ahaanba way wada qabsatay Soomaali gaar ahaan waynu ogeyn sida maalinka maanta ay ugu socotay Somaliland ma ogtahay goboladii la isku oran jiray. marka waxaan ka gilgisheen dhalinyaro maalintan maanta aynu sheegaynay imika dhagax tuurkii ay keentay dhalinyaradii ardaydii hooyooyinkii waxa ay diideen waxay ahayd maalinkan maanta urur dhalinyaro
doontay inay wax qabato oo wax qabadkii wanaagsanaa loo fasirtay inay maalinkan maanta ay waxun yihiin oo ay gaadhay in dil lagu xukumo marka waxa weeye beela gaara iyo maalinkan maanta cid gaaray kuma suntana wax loo dhan yahay ayay hayd oo la diidan yahay waxa bani aadamku dili karo karaamadii baa meesha maalinkan maanta la isugu yidhi marka mudane xasan si looga dhaadhiciyo imika halgankii qadhaadha wuxuu dhalay jamhuuriyadda Somaliland oo maanta ummadii reer Somaliland oo dhan darafyada dhan la wada degan yahay ma la oran karaa yani halgan wuxuu ahaa halgankaasi maadaama uu Somaliland uu dhalay waxay ahayd halgan ay ummadda Somaliland oo dhan ay wada gashay iyadoo aan la kala qaadayn ورسمي تاسي وحوية حقوق مالك المانتا Somaliland لحيد أول لمتي أي مالك المانتا أي خصب نقطي إلى مالك المانتا أي لصو نقطات وحوية إلى موقتها غير جاري أنا يكون شيرين موقتها رجل مجاهدين تا ركبة مقعية كلاب حي مالك المانتا وعبد الرحمن مالك المانتا ومدحون كحجان نقضي وكمدها وأنا ما سيدا الله كلا قاد كريم حفلتنا نقبنا إننا وحوي مرك هراء إنكم با صورنا تذكر إنكم با وحسوا شاكنا وأنت نمال حنا الصومال قوضها والله وحاي كجد وناني عالم كيف الوحش شاكينا يجي با إنه حد ليا متمياش الله قوة الشاكي تذكر مالك ما تأسين يركي وحي كقيب قلي دوران وحي ماشى صدعي وحي كوغايد وحي نقلا قبتين بشاكي دوران إنكم هو يقول شاكنا runtii waxaan rajeynayaa xasan maxamed cige waxaad iigu gudbisaa gudoomiye ciid cali salaan oo kelmadda ugu dambaysa aan siinayo ciid waxaad aragtaa in si fiican oo qurux badan ay saaxiibadaana ay u sharxeen arrinka ugu dambeyntii maxaad kusoo gabagabeynaysaa waraysigan kooban ee aan idinla yeeshay idinkoo wada jira guddiga qabanqaabada xuska maalinta ufada oo ah maalin qarannimo mudane ciid aad iyo aad baad umahadsantahay dalmar waxaan kusoo gabagabeynayaa halkan Cardiff baa la yidhaha Wales baa la yidhaha markii halganka aynu ku jiray waxay kaga jireen Wales dadka joogaa xagga ugu horreeyay kaga jireen waa la wada ogyahay marka maxamed gadiid dalka haystay siyaad bari la oran jiray wuxuu oran jiray warmiyo meesha Cardiff la sheegayo Wales ma waxa la reer Somaliland baa leh waayo mar walba waxaynu ku jirnay frontkan ku jirnay BBC daad caalamka MBA-deenna way nala shaqeeyeen jiraayadkii way nala shaqeeyey yani maanta dadka imanaya ee media imanaya waa dadkii wax naga duubi jiray markii diyaaradda lagu garaacay way imanayaan kala raadsan way imanaysaa ITV gu imanaya BBC gu imanaya kiisigood waan wada xasuumay jiraayadkii waa imanaya waxa weeye ilaa 300 oo qof baan ku xasuumaynaa ma hadnaqaynaa oo ah dadkii wax nala soo qabtay MBA-geena Alan Michael baa kamid ah waa ninkii la baxay Alan Michael sheegay qodobka ah waxa ka socda dhulka Somaliland genocide kidan war baa ka socday waa ninkii baarlamaanka dhexdiisa istaagay weeyaan it was July 1988 bay markii wadanka la bangareeyay arrintan kale asxaabtayna aad weydiisay Somaliland oo dhan baale qadiyada lagu leeyahay halgan qadiyada waxay ahayd Somaliland bay mid gaar oo gooni ma jiro mid la wada leeyahay Dr. Tani muxuu Dr. Tani oo fi who is he يعني وين غير أفضل من وين عبد بريء قلبي دوالي بكرت هذا ما يفهم ما كان قفت هيدا تذكر لها إيه هنوي ما ده نوح ندرك فرنج زين وكتير وحنا ودن قريب ما أنت التاريخ بس إذا يتعب عدتها أيام صوري لنا هذه النوم هذه النوم ما تدرك aad baan idinku mahadcelinayaa daawadayaal halka waxa noogu dhamaaday waraysigii koobnaa ee aan ka qaaday guddiga qabanqaabada xuska UFO oo ah maalin ku suntan qarannimada Somaliland isla markaana ay koox dhalinyaro ah ay bilaabeen in ay halgankii ugu horeeyay ee geeyiga Soomaaliyeed wada gaaray isla markaana sahayday taliskii macangaga ahaa aan la yeeshay runtiina taariikh aad u far badan ay ku aasan maalinta UFO iyo asaaskeedii waanad ka soo qayb gali kartaan haddaad degan tihiin wadanka boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan magaalada Cardiff aad baan idinku mahadcelinayaa asxaabe